ninkii meeshan dhisaa bisinka waa wareer wala karo jira la ilaaha illa allah laba ay qabat asxaabta maanta waxaan rabaa inaan raaco asxaabtayda ii imaadeen sida caadiga ahayd waxaan socnaa magaalada socnaa bir la qaymaaday ducaysan arji sidoo kale shaata meel maqaaxidan jooga saa u jeedaan waxaan rabnaa inaan magaalada aadno waxaan rabnaa sidoo kale salaada duhur inaan ku soo tukano masaajidka Qadaafi masaajidka ugu taariikh badan ugu maartay ugu weyn East Africa aan rabnaa inaan soo ogaano taariikhda uu leeyahay iyo goorta la dhisay iyo dadka dhisay waxa soo dhan inaan la soo socodsiinayna haddii Ilaahay yiraahdo marka halkaan nagala socotaan waa Ismadhaanta show iyo Shata production fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe taabo share barnaamijyada noo share garay si aad ula socoto barnaamij walba anaga aan soo saarayno aad u mahadsantiin isoo raaca waxaan imaanaysaa ujeedaan meeshii aan u soo soconay hore idinku sheegay masaajidkii weynaan imaanay barkeysna masaajidkii maartay East Africa ugu weynaa oo dhisay Maxamed al-Qadaafi taariikhdiisa masaajidka meeshuu leeyahay waxa soo dhan waa intusaynaa hadda gaari ka degnay masaajid gudihiisa hadda ku jirnaa haye aad iyo aad saaxiibada meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan masjidkii weynaa ee Qadaafi ayaan ku dhex sugannahay oo haatan saa u jeedaan waxaan joognaa albaabka laga soo galo masaajidkan taagannahay maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qaybaha uu ka kooban yahay dhismooyinka kala duwan ee masaajidkan uu leeyahay taariikhaha kala duwan iyo waxyaabihii ugu qosolka badanaa ee madaxda dalkan Uganda ka qabsaday masaajidkan Qudus waa masaajidkan Qadaafi ee dalkan Uganda saaxiibada ku xiran janaalkan Ismadhaanta show Big Bro hogaamiyaha ka yahay waxaan leenahay saaxiibayaal nala socda meel kasto oo masaajidkan uu ka kooban yahay idin soo gudbin doonaa arjahayo ku socod waa tahay asxaabta sidii hore idinku sheegeen Big Bro iyo ducaysane waxaan joognaa masjidka Qadaafi waa masaajidka East Africa ugu weyn Soomaaliya Uganda asagoo ku yaala macna laakiin Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia markii la fiirshay Rwanda wadamada East Africa masaajidka ugu weyn waa masjidka Qadaafi asigaan dhex joognaa insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa muuqaalkiina hadalkan ma ku sii dheeraanayo waxaan ku soo dhaweynayaa my brother Birlaqe ورما لو ده ورما قال لنا قرأ مية ورما soo gudbinayna waa sheegteen laakiin hadda arabna inaan muuqaalka gudaha u galno masaajidka soo aragno aan soo tusno dadka masaajidka jirto waa masjidka ugu weyn East Africa badan aan maqlay magaciisa laakiin arkin insha Allah marka ay soo bandhigi naga la socda insha Allah taala masjidka Qadaafi gudaha u galeyna hadda داوديال ولي وانا لا سoctaan waxa kori doonaa marka qaybta kore ee masaajidka qayb weyn uu leeyahay ma faatay masaajidka waxa waa masaajid aad u weyn waay yaal ibaakini iyo waxyaabo badan aan ku dhex yaalaan sax laakiin kora kori doonaa kabaan iska siibina Soomaa kora korina nala socda waa u jeedaan koraan soo kornay meesha uu kore waa taas minaaradii weyneedna waa taas oo dheereed qaybtii kore ee masaajidka waaye dhacta ina korna isku dayeen ha masaajidka run ahaantii wadankan wadan oo maartay oo cajiib ah maartay islaamka ay degan yihiin sidoo kale gaalada ay degan yihiin laakiin minaaradda laakiin minaaradda aad u dheer ha ina kor aan koraa isku day waliba
وكرنا وكرنا كورينا ساعة لو ساعة دير تقاط وكرنا إلى كرنا جرت لا لا صعصي سعينا اجعل الله متقرر كورينا اللي ريحه هاي معك هذا مسجل شك نيوت مساجكان waxyaabaha ugu cajiibka badanaa waxaa kamid ah in madaxweynaha dalkan Uganda Yoweri Museveni uu soo booqdo masaajidkan uu yimaado mararka qaar uu la kulmo imaamyada iyo masaajidkan dadka howlwadeenada ka ah sidoo kale masaajidkan dhexdiisa waxa ku yaal wuxuu leeyahay jaamacad islaamiga uu leeyahay Islamic University jaamacad ku taalmaya jaamacada ku taal albaabka hore markii laga soo galay geeskan ay ka soo qabanay in aragta laga yaabo masaajidku wuxuu leeyahay hoolal uu leeyahay hool uu leeyahay inta badan may waxa lagu qabtaa waxyaabaha oo ku aadan diinta islaamka iyo waxyaabaha ku aadan arday dugsiga markay kala jibinayaan iyo waxyaabahaas lagu qabtaa arrimaha ardayda waxyaabaha ku saabsan lagu qabtaa waa sax ducisane waxaan kaloo too mashaajidkan imaado dadka oo dalxiisayaasha cadaan noqdaan gaalaha noqdaan ama noqdaan islaam taariikh weyn markaas maxay yeelay cadaanku markay imaadaan halka imaadaan mashaajidkan weynkiisa markay arkaan waxay ka qaataan bigashara ka qaataan way soo boqdaan way arkaan hatta marka banaanka joogto waa aragtay cadaan arkay waa dabcan way mashaajidka yartay aragto sax waxa laga yaabaa inay mashaajidka marka aragto inay ku wana qaadato soo islaamta laga yaabaa masaajidkana wuxuu kaga dhigantaa inay soo boqdaan cadaanku waa meel taariikhiya dalkana macnaa dal walba wuxuu leeyahay mugtaay meel oo taariikhiya waxyaabo taariikhi uu leeyahay mugtaay sax masaajidkan wuxuu kamid yahay meelaha taariikhiga oo waaweynka oo dalkan uu leeyahay waxaan kaloo ka iloonaynay daawadayaasha masjidkan waxaa la dhisay 2006 la dhisay 2006 hadda la dhisay loo marayahay وميلاد قروح بدل وحلو قام من سد هذا باقولونك نقدر هذا وين رتي وقياستي وحو قاد انا قياستي هدي لا قياسو ان انا بعادي انا يقادا ولي غديhiisa ma gelin anaga صح laakiin waxaan rajaynayaa waa soo daan inta ku soo daalay inta ku soo daalay korasi kurinay kambaala dhan ma arkino hoosteena imaahay bas oo yabi diyaarada saaranta ma la socda ma la socda saabta ma la socda kurina كورينا ماشي هو كوري والوريد ماشي ضد ماشي كديع دون ماشي هو كورينا صاحب يا هيا هو ده ها ولي بس بدو ابا يا الله هو سيجي لي بس عاو انا واحد قال لي بلغ علي قال لي ساعه حاجات والله بسم الله واحد ما ادري من مرك وامر والله كروجي لا اله الا الله لا باي قبط ودالي والله ودالي والله waxaan ka cabsanaa mataqaanaa jaraanjata inay minuud duntaa ka cabsanaa wallah wallahi billah bismillah wallahi billah ninkii meeshaan dhisaa bisinko laakiin kabaala dhan waa u jeedaay magaalada hoosta ay imaatay والله لا سير سدال والله هاي مال برنامج هذا مال لو نص ملابا يبيو لكن ماشي الدكان ما كفرتان والله ما ادري ولا الدكان ما كفرتان وصدال والله سيري انا ابغى كسول وين انا ابغى كسول وين اي ما تو انا سؤال
والله بلا مرضى ما اللي مغلاه لا إله وأنا شفنا هذه بدل أبوني يا أنا هذا رايد كم مش أنا كفتان العالم بدأ وقال الله مش وضع بيسمعنا والله بسم